waayaha cusub ayaa ka hadlay hees ay khamiistii soo galiyeen barta YouTube-ka taasoo in ka badan 60,000 oo dislike la saaray. ereyada heestaas ay fanaaniintii ku luuqeynaysa kamid tahay Felis Cabdi ayaa u muuqda kuwa lagu dhaliilayo dawladda federaalka Soomaaliya. Waxa maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada ee Soomaalida qabsaday hadal haynta heestan oo dadku ay siyaabo kala duwan uga hadleen. fanaanka Shiina Cabdullaahi Cali oo waraysi siiyay Salaama Channel ayaa faahfaahiyay ujeedka ay heesta u soo saareen. waxa uu yiri runtii waxay la tahay inay tahay qowda maqashii waxnaha u qaban waana caado ay leeyihiin nabad iyo nolol. heesta waxaa sameeyay waayaha cusub hadafkooduna waxa uu ahay wacyigelinta ummadda Soomaaliyeed. ujeedka aan u sameynay waa inaan shacabka Soomaalida xilligan asaasiga ah ee kala guurka lagu jiro ugu iftiimin xaqiiqooyin badan oo jira iyo waxyaabo looga dhigayo dawladnimo. waana sababta keentay saameynta intaas la eg ayuu yiri. wuxuu Shiina sheegay in heestooda ay dadku aad u soo dhaweeyeen ayna ka falceliyeen in ka badan 30,000 ilaa 40,000 oo ka hadlay heesta. Shiina akhyaar ayaa sheegay in ay qariyeen qaybta laga arko dislike-ta iyo like-ta ee muuqaalkaas isagoo sharaxaya sababtuna waxa uu yiri sababta aan u xirnay like-ta iyo dislike-ta waxay ahayd in sida ay dadku ugu mayir habaabiyaan in ay guul ka dhigayaan oo ay muujiyaan in ay waayaha cusub shacabkooda Soomaaliyeed dislike gareeyeen. wuxuuna dawladda Soomaaliya ku eedeeyay in lacag ku bixisay sidii dislike badan loo saari lahaa muuqaalka heesta ay soo galiyeen waayaha cusub. saacadihii ugu horeeyay si fiican ayaan ula soconay ayuu yiri Shiina. laakiin waxaan ognahay 50,000 ilaa 40,000 oo dollar ku dhawaad loo adeegsaday lala dagaalamo xorriyatul qowlka oo lagu soo iibsaday dislike sidoo kalena abaabul lagu sameeyo baraha bulshada. hase yeeshee Salaama Channel wax cadeyn ah uma hayo in dislike la gatay. dawladda Soomaaliya oo aan isku daynay in aan xiriir la yeelano ayaa ka gaabsatay arrinkaas. falceliyay badankood oo heesta dhaleeceeyay inkastoo Shiina uu ku dooday in lacag lagu bixiyay dislike-ta haddana waxaa jiray in ka badan 34,000 qoraallo faallo ah oo laga bixiyay. inkastoo Shiina uu ku dooday in lacag lagu bixiyay dislike-ta haddana waxaa jiray in ka badan 40,000 qoraallo faallo ahaan looga bixiyay heesta. dadka qoraallada reebay badankood waxay dhaliilayeen heesta iyagoo taageero u muujiyay dawladda Soomaaliya walow kuwo kale oo kooban ay garab istaageen kooxda waayaha cusub. Shiin akhyaar oo aan weydiiyay hal ku saabsan faalooyinka qoraalka ayaa yiri dadka aad leedahay YouTube-ka ayay qoraal ka sameeyeen aragtidooda waan soo dhaweynaynaa laakiin waxaa xaqiiq ah dad badan oo lacag ku siiyay in ay olole ka sameeyaan baraha bulshada. hees kale oo wax yar kadib la soo galiyay barta YouTube-ka oo uu ku luuqeeyay fanaanka caanka ah ee Dalmaryare ayaa laga dheehanayaa erayo lagu taageerayo xukuumadda federaalka Soomaaliya. dad badan ayaan u fasirtay in ay jawaab u tahay heesta waayaha cusub. ilaa iyo hadda in ka badan 23,000 like ayaa la saaray heestan sida muuqata oo ay daawadeen dad kor u dhaafay 170 waxaana dislike siiyay 1,200. السماء ميبا كداي دولكينا صعبة كبحي شبادي سومالي تيل السادة القلد لقو نصيو السابانا خير لا عرتي سالو يا ودي إلو السابانا خير لا عرتي سالو يا ودي إلو السماء ميبا كداي دولكينا صعبة كبحي شبادي سومالي تيل السادة القلد لقو نصيو السابانا خير لا عرتي سالو يا ودي إلو السابانا خير لا. dadka ka falceliyay heesta Dalmar qaarkood ayaa qoray faalooyin ay ku muujinayaan taageerada dawladda iyo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isticmaasha baraha bulshada ama fikirkooda ku soo bandhigaya ayaa aad u sii badanayay muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo aad moodo in wax kasta oo uga falceliyaan dhinaca barahaas sida Facebook, YouTube, Twitter iyo TikTok. haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar.